taariikhda addoonsiga ee dadka madowga. goorma ayay bilaabantay addoonsiga dadka madowga? maxaa keenay in la addoonsado? halkee ayay ka soo bilaabantay? cadaawadda loo hayaa maxay ahayd ee sababtay in la addoonsadaa? maxaa gaar uga soocay dadyaga kala duwan ee adduunka? ma midabkooda madow ayaa sababta leh mise dhaxal bay u heleen in la addoonsado? taariikhda addoonsiga ee dadka madowga. ku soo dhowaada warbixinteennan oo aynu ku lafagurayno taariikhda mugdiga ah ee addoonsiga dadyaga madow. waana warbixin ka mid ah barnaamijkeenni tusmada caalamka, waxaana idinla socodsiin doonaa aniga oo mukhtaar maxamed diriye ah, mukhtaar jambaq. haddaba daawade, intaynan u gudagelin warbixinteennan, fadlan haddaad ka heshay muuqaalka like saar si ay dad badan u gaadho. wixii talo ahna kommentiga hoose noogu reeb. haddaad nagu cusub tahayna fadlan sabskribe saar, dawankana furo. mahadsanid. addoonsiga dadka madow haddii aynu in yaroo kooban ka iftiimino halka ay ka soo bilaabantay, waxaynu taariikhda dib ugu noqonaynaa kumanaan sano ka hor iyo taariikhdii boqortooyadii faca weyneed ee faraaciinta. daawade, haddaad in yarna xog ka hayso taariikhdii boqortooyadii faraaciinta, waxay soo martay marxalado isbeddel oo kala duwan. marxaladahaas oo kuwa laga xusaa ay ka dhasheen isbeddelka dhanka hoggaaminta ah. wakhtigii boqortooyada faraaciinta ay ku soo duuleen dadkii reer nabaata ee degganaa suudaan, lana odhan jiray kushitiga, kuwaas oo ahaa dadyow madow, islamarkaana ay maamulkii boqortooyada faraaciinta la wareegeen. waxay boqortooyadaas ka dhigeen mid dhan kasta ka hana qaada, waxayna gashay wakhtigii ay ugu xoogganayd boqortooyadaas faraaciintu. wakhtigaas waxaa boqortooyada faraaciinta soo hoggaamiyey boqorro dhowr ah oo qaarkood ay xagjir ahaayeen, kuwaas oo sheegtay awood aanay lahayn. boqorradaasna waxaa ka mid ahaa boqorkii kibirka iyo isla weynida badnaa ee fircoon, kaasoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kitaabkeena qur-aanka in badan inoogu sheegay halka kibirkiisa iyo isla weynidiisuba ay gaadhay iyo halaagii ilaahay marsiiyeyba. fircoon wuxuu xasuuq iyo addoonsi kula kici jiray dadkii reer bini israa'iil jeer ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u soo diray nebiyullaahi muuse, islamarkaana uu ka samata bixiyey gumaysigii fircoon iyo boqortooyadiisiiba. halaagii fircoon kadib, taariikhda boqortooyadii faraaciintu halkeedii ayay ka sii socotay. hoggaaminteediina waxaa gacanta ku sii hayay dadkii madowga ahaa ee reer kushitiga, kuwaas oo tacaddi iyo addoonsi u geysanayay dadyawgii kale ee aan kushitiga ama madowga ahayn. waxayna taasi sababtay in colaad xun loo qaado dadkii madowga ahaa iyo boqortooyadaasba. colaaddaasi waxay sababtay in dadyawgii kale ay ka tashadaan sidii meesha looga saari lahaa awooddii boqortooyada ee dadka madow. ilaa la soo gaadhay taariikhdii burburkii boqortooyadaas, waxaana ku soo duulay hoggaamiyihii kiristanka ahaa ee reer makedoniya ee alexander the great, isagoo watay ciidamo kala duwan, kuwaas oo gariig u badnaa dagaallo culus oo uu la galay boqortooyadaas. aakhirkii wuxuu ku guulaystay inuu meesha ka saaro hoggaamintii dadkii midoobaa ee kushitiga, islamarkaana wuxuu boqortooyadii faraaciinta u oggolaaday inay sii jirto, isagoo hoggaan uga dhigay boqorraddii la odhan jiray kilobatra. sababta uu boqorradda kilobatra ugu oggolaaday inay sii hayso hoggaanka boqortooyada faraaciintuna waxay ahayd inay gabadhaas asal ahaan iska dhaleen nin masaaridii cadcadayd ahaa iyo gabadh gariig ah, islamarkaana abtinimo loogu tixgeliyey inay boqortooyada sii hoggaamiso. dadkii madowga ahaa ee reer kushitiga markii laga tuuray xukunkii boqortooyadaas, waxay dib ugu noqdeen dhulkii ay markii horeba ka yimaadeen ee magaalo madaxdoodii labaad ee nabaata ee dhulka suudaan maanta ah. muddo yar kadib, colaaddii loo hayay dadkii madowga ahaa iyo boqortooyadoodiiba waxay sababtay inay mar labaad dagaal ku soo qaadaan labadii boqortooye ee roomanka iyo bershiyaanka, iyagoo iskarabsanayana ay dhulka la simeen boqortooyadii faraaciinta, islamarkaana ay boqorradii kilobatra ay halkaa isku dishay. arrinkaasi waxa uu sii xoojiyey in ugaarsi lagu bilaabo dadkii madowga ahaa ee reer kushitiga, kuwaas oo waxna la laayay waxna la qafaashay. intii ka badbaadayna ay firdhadkii u kala yaaceen bariga iyo geeska afrika. maalintaas kadib waxaa adduunka ka bilaabmay kana hirgalay addoonsiga iyo dulaynta dadka madow, iyagoo laga dhigayo inay xayawaanka iyo xoolaha la dhaqdo ay la mid yihiin, islamarkaana sidii neef saylad la soo taagay loo kala iibsado. addoonsiga dadka madow sidaas ayuu adduunka kaga hirgalay ilaa jeer ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey diinteenna suuban ee furqaan, islamarkaana uu si cad u sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa bini'aadamku inuu siman yahay. warbixinteennii ku saabsanayd halka uu ka soo bilaabmay addoonsiga dadka madow waa naga inta aynu ku kulmayno warbixintan oo kale ah. waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah.